dhalinyarada aqoon-yahanka ah ee halkan caawa ku soo bandhigay qaabistii iyo wax ka beddelkii barnaamijka siyaasiga ah xisbiga manifestadii oo runtii waqti badan oo ka badan 50 maalmood geliyay jazakumullah waa idin mahadnaqaynaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa tacabkaa gelisayna waxaas leeyahay waxaa ka faa'iidi doonaa shacbiga Somaliland waxaan kaloo si la mid ugu mahadnaqayaa dhalinyaradii qabiya qoraalkii koowaad soo samaysay oo iyaguna muddo sanado badana gacanta ku hayay sidii la idinku keenayna ku soo gudbiyay barnaamijkani sidaa sheegteen barnaamij qiimo badan buu noqon doonaa insha Allah waxaa kaloo aan ka mahadnaqayaa inaad soo raaciseen talooyin ku saabsan sida ay message-kaas shacbiga u gaarsiinayno insha Allah talooyinkana xisbigu uu hirgelin doonaa waana qaadan doonaa barnaamijkani maalin waxaan ka waraynay in dalka Ingiriiska doorasho ka dhacday oo xisbi muddo badan aan talada haynin oo landslide ama tiro fara badan ku guuleystay barnaamijkiisa waa yara eegay maalin weyto marka ma wada dhammayn runtii laakiin waa say dhowr qodob baynu ka wadaagnaa barnaamijkaas waxaa ka mid ah rajo soo celinta ama innaguna waxaanu slogankeenu iyo xisbiga rajada waxaa kaloo ka mid ah inay joojiyaan to stop chaos ama fawdada joojinta qalalaasaha xasilooni darrada iyo fawdada oo aad moodo inay barnaamijka koowaad ka dhigatay xukuumaddeedu waxaa kaloo ka mid ah in uu ka mid ahaa barnaamijkaas it is time for change innagana isbeddelku wuxuu inoo yahay runtii arrinta ugu weyn ee barnaamijkeenu xambaarsan yahay waxaan kusoo ganaanadaya inaan qof kasta u mahadnaqo mar labaad waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarada aqoon-yahanka ee sida mutadawiciinta waqtigooda ugu deeqay barnaamijkan waxaan kaloo mahadnaqayaa dhalinyaradii xogeeyayaasha xisbiga ee iyaguna ka qayb qaatay barnaamijkan waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa inkastoo ay sheegteen tiradoodu inay yaraayeen hablihii iyaguna ka qayb qaatay barnaamijka waxaan dhammaantiin idin rajaynayaa inaynaan barnaamijka halkaa kaga hadhin wixii dambe ama dabagalkiisa ama korjoogtadiisa ama wixii kale dee aragkeetaan soo baxaba insha Allah heegan waxaan doontaan barnaamijka ilaa intaynu gaarsiinayno qofka codaynaya waxaan jecelnahay inaad qaybtiinii ka qaadataan iyo contribution-kii